magacayga waxaa la yidhaha nadiif geedi maxamed waxaan ka hadlayaa falkii ka dhacay shale Tana Garden waxaan nahay dad reer Gaarise oo Kenyaan ah oo Soomaali ah qabiil shakhsi qof baniin waxaan nahay reer Gaaris falkii shale ka dhacay Tana Garden ee lagu xumeynayay majority-da horta waxaan inii sheegay ninka majority-da la dhaho anagu waan dooranay laakiin ninka kartidiisa iyo nimaadiisa in la sheego way wanaagsan tahay majority-daas kartidiisu isku geey gobolkan waqooyi bari Gaarisa maha oo dhan ay wuxuu u yahay mas'uuliyad ay dadka Kenya waqooyi bari ay ku faanaan markaan hal u fiirino lambarka saddexaad oo Kenya kaga jira waxaan dhihi karnaa waa ra'iisul wasaare markii aan indhaynayna ra'iisul wasaaraha gobolka Kenya inuu yaan malayn karnaa nimankii walaalahayna ay ka hadlayaan arrintii Bishaar markaan walaalnimo iyo tolnimo u wada hadlayno oo runtii isku sheegayno dad walaal baana Bishaar sidaan ku geeyna meesha uu aadan bari ku geeyay waa la ogsoon yahay nin lion ingiriisku xudha libaax nin libaax u dilay oo meesha kawaanjada kaga oohiyay oo isku karti ahaan isku nimaadna ahaan Abdikay ninkii la dhaho qabiil lama fiirinaynin midnimada Gaarisa Tom iyo wadajirka iyo wala socodka ayuu aadan u dagaalay hadduu qofka asaga dhaliil la imaaday ma ayni qof lagu raadgato ma lana wasaqeeya ma aha nimanka walaalahayna waxaan leenahay meesha midnimo iyo wadajir iyo Gaarisa midnimadeeda rabna intan waa reer Gaaris anaga aflagaada ma rabno falkii aad la sameeyay meesha aad ka sameeyeen inaad Gaarisa aad reer Gaaris sameyn ku xirtiin majority-da sameyn ku xirtiin oo ka raali gelisiin intaasaan leenahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh talow akhyaar badan baa hadashay si fiicanna way u hadashay meesha samawadal laleey anigaa samawadal ma dhahayi samawadal iskuma raacsano in uu aadan bare wax ka sheego iskuma raacsano mana isku raacay laakiin in yar baa wax ka sheegtay intaasna ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ka soo hanuuniyo taa waa qodobka labaad baalkan telefoonka ee network buu qabaa networka mar uu iska dhumi baa jira hadda waxaan u arkaa Bishaar Ibrahim Abbas wuxuu network inuu ka dhume networka ka dhumay Allah u soo celiyo networkii ka dhume bir dheera u suraynaa network ku hagaajisto bir baan u suraynaa bir networka uu ku hagaajisto ayaan u suraynaa maxaa ka mid ah Bishaar doqon ma aha waa nin siyaasi 5 sano MP soo ahaa 5 labaad uu tartame wuu dhace meeshan siduu ku imaaday wuu garan doqon ma aha laakiin waxaan dhihi karaa networka ka dhume waxaan dhihi karaa networka ka dhumay networka Allah u soo celiyo midda labaad midda kale waxaan leeyahay reer Gaarisow aadan bare waxaa waaye majority leader wax qabadkiisana wax qarsoon ma aha waa wax bannaanka yaallo waa wax macallimiinta dugsiga madarasooyinka jaamacadaha ay ku sheekaystaan way markuu waxa saa yeelay ana qaba maana dhihina asaa kartidiisa iyo nimaadiisa ku sameeyey wuu ku mahadsan yahay waxaanan rajaynaynaa dadka xaxaganayow sanadka dambe aadan bare hadda waa majority leader waxaan rajo ka qabnaa sanadka dambe madaxweyne ku-xigeen inuu noqdo madaxweyne ku-xigeen madaxweynaha ku xigo inuu noqtaan rabnaa wuuna gaari doonaa waxba yaa lis xaganin
siyaasad way dhammaani nin walba wuxuu galu goobta la tagaa ninkii wax qaban rabow waxaad qabatay goobta la imow ninkan wuxuu goobta la imaado u haastaa adi haddaad waxba goobta la imaan karin waxba ha xaxgeenin iska daa annagaa jecel reer gaarsaa jecel soomaalidaa jecel reer kenya baa jecel kenyaankoo dhan buu majoritiisa u yahay ninka hadday wuxuu dhahay meeshan 42 feel baa ka furan kukuyaa ku jirtaa waxaa ku jirtaa kalenjiin waxaa ku jirtaa mukaamba waxaa ku jirtaa reediini waxoo dhan feelalba u furaa la yidhi oo baasirig ilmaha looga bixiyo ninka dadaalkaa sameeyey adoo assembly dhex joogto ma canaanan kartid waxna kama sheeg kartid marka saasaa jirtaa annaga waxaan leenahay samawadal ceeb ma qabo waa tolkayaga waa tol fiican iskuma raacay khalad iskuma raacay in yar umbaa wax tire intaa ha ka soo noqoto ayagoo tolkoodii ku soo noqteen walaal ha noo imaadaan wabilaahi tawfiiq waxaan noogu hadli nimankii aan dhegaystay baa goodis ku dareen soomaalidana waxay tiri gudun waxay goysay gadaasheeda dhigtaa ninka wax buu gale nin la sheegsheegay waxbaa u laaban weli aadan barre wax u laaban ma leh waxaan kaloo kuu sheegin ninkii dhahow annag majority leader baan geyne majority leader maad geynine haddaad kuuro u riddana mb umbaad ka dhigtay majority leader reganimadiisu kula imaaday bishaar hiqdi baan oogu qaadnay annaga aniga cawdaq baana ree qaasim baana bishaar markuu geynay aadan barre hiqdi baan noogu qaadnay muxuu bishaar u gee oo wiilashan nala dhasheene astaahilaan uu geen waa haddana busad waxay kaala carartay bay xagga kula dagaalantaa haddii beddelku mahadcelin lahaa maanta assembly baa yaa ka hor imaaday assembly hadduu ka hor imaaday aadan barre kuma jiro hadday u keenteenna wixii uu ku arkay ama uu ka maqle uu la imaado u sheegay inaad xanuunsato markaad la imaanaysa siyaasi baad ahayd waad akhrisatay aqli baad qabtaa intuu akhrista waad akhrisatee horta waxgalkaada inuu yar 5 sano keli maxaad oogu ekeed ninkan 15 sano mb yuu ku soo noqonay adi maxaa ku celi 5 keli kugu koob waxaa ku dhalay ibraahim cabaasaa ku dhale oon garanayno had waalid baan kuna waxaan rabaa nin yahow walaalka annagaa ku dhale gembarka markii lagu saarayna waxaa ku saaray aadan barraa ku saaray annagaa ugu hiqdinne haddana egaad astaahil meeshii la rabay aad ka soo bixi waase waa lagu adig haxaaganin ninkii shalay ku geeya wey waxaad xaaganayso kuguma fiicno sidaa markay tah samawadalow walaalayaalow walaal baanna nin wuu gafi karaa laakiin qabiil ma gafi karo hadda qariib 7 nin 8 nin baan arkay oo isdaba fadhido war wiilkan la hadla samawada aadan barre ninkii innigaan idinku xamanayne ninkan la hadla oo war aadan maxaa sida nagama dhaxaynin dhaha laakiin haddaad goodisiin nin nii goodiyo waxaad tiriin idin dhihi karo waa la heli aadan barrena waxba kama qaadaysaan 750 nin oo qolo kastaa la kenyaana soomaali ku jirin iyo intuu hor joogsado u goodin may wax ka qaadaan ani waxay ila tah ka soo noqda arrinta maanta reer gaarisaad u gafteen majority leader umiina gafin ka soo noqda arrinta gaaris raalligeliya bareestaga intaasaan kaga baxaani بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وثناء الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه وسلم مقعيق وحالي هذا رشيد قارن الظاهر وحنا هاي نين فوما كانسل شنطة عبق ورجارسا كاونتي حدنا رجارسا تونشيب لا شقيه محشموها مجور الليدا محشموها دعالي وجارسا تونشيب كلا شقيه أو إسقول
tumayne primary school yiraahdo 15 sano chairman ka tumayne secondary school BTA chairman ka madrasatul manawar madrasooyinka sida madrasooyinka madrasada soo raacday manawar buula madiina ku taala chairman ka lana shaqeeya majority leader waxaan halkan ka xusi haddaan nahay reer Garissa County waxaan leenahay gafana senataan leenahay MPyaal 6 ahaan leenahay woman rep baan leenahay halkan ninka sida cadaaladda ugu shaqeeya reer Garissa County waxa waaye majority leader Maxamed Ducaale ayaa ugu shaqeeya waa halkan ninka Garissa County tacliinta xagga maadiga iyo xagga diinta islaamka ba kor u qaaday Garissa reer Garissa County hadaan nahay aan ku tiirsanahay waa ninka madrasooyinka fundraising ku aruriyo waa ninka iskuulka dhiso waa ninka lacagta CDF la yiraahdo lagu hormariyo constituency-yaha dhab u maalgeliyo dalkiisa jeebkiisana ugu daro markay deeqi waayso sidaan anaga aan ogsoonahay waxaan ka xunnahay ragga xajiimeen hayo mar walba cidiyaha ku farihayo ama MP ha ahaado ama MCA ha ahaado ama nin ka sii sareeya ha ahaado nimo doon ha aade xajiimeen hayo reer Garissa County aad iyo aad baan uga xunnahay sababtoo halka ninka wadnaha reer Garissa aan ku seexano gabdhaha ku seexdaan odayaasha ku seexdaan dhalinyarada ku seexdaan ragga tacliinta soo akhrista ku seexdaan kuba iskuulka akhrisanaya ku seexdaan waa majority leader Maxamed Aadan Barre Ducaale ninka asaga in loo gafo oo assemblyga Garissa County looga gafo oo la xajiimeeyo aad iyo aad baan uga xunnahay waxaan ugu baaqaynaa reer Garissa County horta madaxda inay dhab u wada shaqeyso midnimada ay ku wada shaqeyso waan ugu baaqaynaa hadiina la heli karin ninka shaqeynaya annaga wadana reer Garissa County hadaan nahay annagu indhaha annaga yahay annagu wadnaha annaga yahay annaga ku faana wuxuu hayana annaga ogsoon banaanka in looga maraan codsanayna sida runtii oo aan la xajimeyn mar dambe oo xajiin iyo afligaada xaqiisa ku saabsan dhagaha annaga ay ku dhicin ninkii reer Garissa County oo dhab reer Garissa County uga danqanayane waxaan codsanaynaa inuu la shaqeeyo oo si dhib oo la shaqeeyo hadaan nahay odayaasha reer Garissa County waxaan garab u nahay Maxamed Ducaale waxaan garab u nahay Maxamed Ducaale waxaan taageero u nahay Maxamed Ducaale waxaan ayadsanahay oo maqsuud aan ka nahay sida dhabta reer Garissa County oo uga shaqeynay waa halka ninka North Eastern Province darajo ka hayo dalka Kenya majority leader yaa geeya ma anaga u kaabeen gareyn marka reer Garissa County u kaabaan gareys dadnimadiisa iyo kartidiisa iyo tacliintiisa geeysa in lala shaqeeyo leeymo in la xajiimeeyo malaha waxaan codsanaynaa ragga wax laga sheegay Maxamed majority leader afligaadeen hay ama waxyaalaha ka sheegayo inay soo gaabsadaan oo reer Garissa ay xishmayaan baan codsanaynaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرالي علي باليرادة odayaasha reer Garissa liidasaan ku jira marka Maxamed Ducaale ninka ka daba hadlayo waxaan u malayn shalay u dhashay nin shalay dhashay oo ma ogiye nin horaan hor u jiray ma aha Soomaalida waxay kuma mahdaa sumal baraar uma eko horta ninkii Maxamed daba socdo sumal baraar uma ekid sumal baraar uma kay Soomaalida kuma mahday marka waxaan ku sheegaynaa ninka la hadlayso horta yuu yahay ma taqaanaa ma taqaanid baan u malayn nin kula dhan ma aha kula da ma aha kula غير ma aha Ducaale wuxuu qabtaa hor yaalla Ducaale wuxuu qabtay yaa hor yaalla madrasooyinka islaamka wax ka qabtay kuwa gaaladu wax ka qabtay tacliintu wax ka qabtay laamiga Garissa wax ka qabtay bal horta iga Soomaali waxay tiraadeen ninkii gurigiisa hagaajiyo yaa guri walaal hagaajiya gurigaada markaad hagaajiso baad guri walaal hagaajinayo ninka Ducaale daba socdo waxaan ku leenahay arinta ayide adi iyo qoyska kala tabo aad oo noqda sabeenka xira walaalnimo ka xiga fiicnaanka xiga anaga reer Garissa baan nahay qabiil kasta uu fadhiyaa meeshan ayide waxaan ku sheegnaa arinta ayide inaad dib ooga noqoto wixii lagu galay wuxuu yiri nin wixii loo galay haduu garan maxay soo maamaada wax yar yaa kala maqani marka wixii lagu galay hadaa bad garani ma wada socoteen Ducaale meesha laga qaaday waad ogtahay walaalow nin aan dhalnaa ku dhale inaad waxaan moodayna waalid aan ku nahay waadna garan waayse waxaan nahay baad garan waayse waxaan ku leenahay walaalow way ka maqantahay soo noqo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu